بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. waxaan rabaa inaan si kooban idinkugu soo gudbiyo xogta runta ah ee ku saabsan cabdikariin sheekh muuse oo aad u taqaanaan qalbi dhagax. waxaan isu taagayaa hadalkii soo yiri maanta gacanyarihii gabro ninkii sirdoonka Itoobiya ma taqaanaa qaabilsanaa xilligii Muqdisho lagu dilayay Itoobiyaanka ku dilayeen 7,000 oo qof oo Soomaaliya. Jamaaludiin Mustafa Umar oo dhashay beesha Karinle ama mursadaysa oo taqaanin hadalkii maanta uu sheegay oo mataqaana misleading ka ahaa ee uu ku misleading gareynayay shacabka Soomaaliyeed ee fila farmaajo ama fila Soomaaliya looga soo dhiibay hadalka ana soo koobaya soo koobi doono ma qaa laakiin waxaan rabaa horta xogta dadkii gudbiyay inaan ku bilaabo dadkii cabdikariin kiiskiisa ku lug lahaa oo halkan aan ku qortay ee la hubo ayaan rabaa inaan ku bilaabo magacyadoodii maxamed cabdullaahi farmaajo oo dhashay beesha maryaxaan daarood xasan cali qayr oo dhashay mursada hawiye cabdullaahi maxamed sanbulosh oo dhashay xawaadle hawiye mustafa sheekh cali dhuxule oo dhashay mursada hawiye cabdiraxmaan cumar cismaan yiriso oo dhashay abgaal hawiye taabid cabdi maxamuud oo dhashay abgaal hawiye صادق جون عمر أو شيء هبرجدر هوية بشير محمد جامع قاب أو شيء مديبان أحمد على الداهر أو شيء در مهدي محمود جويد أو شيء إذا قرأ إساق فهد ياسين حاج الداهر أو شيء ريو حسن عبد الرزاق شورى أو شيء للكسد دارات عبد النور محمد أو شيء ريو حسن عبد الله عانض أو شيء مريحان دارات عبد الرحمن كلمي حسي عبد الرحمن ديري أو حلبان أو مجلس رنتان وياه حسن جامع حسي حسن روح أو شيء ريو قطب شيقال هوية يا جمال الدين مصطفى عمر أو شيء سيحاول كرين له هوية يو محمد عبد حير ماري أو شيء هورجع له إساق أنت أي هاي أو ترجع الأوجي هاي إيه متقنا عبد الكريم أفتوب كيستوس أو طيب قاتي ففاينتك وان كوبي كسود يبقى الكعيو وفاينتك وشيء دونا مركا ولما ديارة أنت أو عبد الكريم إيه حقيقي وسجنوا جمعه كشيء دونا شكل جرا جمعه دولة هذا منك الديارة ده ولما ديارة ده وحوي عبد الكريم ديارة بكرو هذا وحاسو كري ديارة تابد عبدي دقهرين مقدشو ديارة دولة راعي إلى بين دولة تابد كدمنا السابول السيادة ديارة ده حيرة سهراي وري تابد عبدي مصطفى حلو يو نيكلا صدرتون يو جمال الدين مصطفى عمر نيكا سفير كإثيوبيا وفريق صوماليا marka waxa weeye hadalka marka waxaan ku bilaabayaa cabdikariin sheekh muuse ugu dambeyn 5 saacadood ka hor ama 4 saac bar ka hor ayaa ra'iisul wasaaraha wuxuu la kulmay Itoobiya Abiy Ahmed wada hadal dheer kadib warqadii cafiska ee sida rasmiga ahayd ayaa la siiyay anigana cabdikariin waxaan wada hadalnay aduu muddo hadda laga joogo 1 saac ama 1 saac oo 5 daqiiqo dhiman marka cabdikariin wuxuu ii xaqiijiyay maalinta talaadada ah duu ilaahay raado 2 duhurnimo inuu ka soo degay garoonka Jomo Kenyatta mataqaana magaalada Nairobi ee dalka Kenya marka cabdikariin duu ilaahay raado يوم 3 wuxuu joogaa maalinta talaadada ah wuxuu joogaa meesha leedahay Kenya marka cabdikariin si guud ayuu faahfaahin u bixin doonaa oo shacabka Soomaaliyeed u faahin doonaa sida loo afduubay cid afduubkiisa ku lug lahayd laakiin hadda si hordhac wuxuu iga codsaday anigii gabadhiisa naga codsaday inaan la hadalno idaacadaha waaweyn ee caalamka qaybaha afka Soomaaliga iyo kulli inaan la hadalno VOA-da iyo BBC-da iyo Universal iyo kulli inaan la hadalno dadka internetka kala hadalno anigii fartuun qalbi dhagaxba ayuu naga codsaday si wada jira wuxuu meesha ka saaray wuxuu wiri nimankaasi waxay isku dayayeen farmaajo iyo kooxdiisa waxay isku dayayeen in xabsiga u dhex dilaan in xabsiga lagu sii hayo laba mishiin waan ka badbaaday haba yaraateen siideyntii shaqo kuma lahayn siideynteeda waxaan uga mahad celinayaa oo cafiyay oo warqad cafis ii qoray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo uu sheegay inuu xor yahay Itoobiya meesha raba ka mari karo oo dowladda tagaan la hadli karin ay wada hadal dheer yeesheen marka intaan u gelin arrimaha kale fartuuna bal aan waco
سيجا قبضتو موجي ميل آد وعليني وجوكتا سيجي شكتي قطنا وإذا عيانا بكذا داو بانتي نسجا والسلام يا إنه السلام وسكعاد ويسوي بك رغتك لكن أنا قاعد كنت لنا إنه هالمرة صفة عنه هالله فتون لايف فان كجرا شعب كان u sheegay warbixintii aabeed dardaarkiisa iyo inuu imaanayo Kenya iyo in maanta warqadiisa rasmi loo siiyay marka shacabka لايف فان kujira la hadalba shacabka Soomaaliyeed ها لايف فان kujira xageed jirtaa Facebook ka jira marka dadka balla hadal waa ku maqlayaan hadda maqlayaan ها fariinta u gudbi maanta ها waa ku jira live ku jira ha u soo koob hadalka sheegashada ay sheegteen maanta uu yiri kiisa fiirka Ethiopia yiri ma taqaana dawladda farmaajo la haashay aba fariintuna soo faray wixii la gudbi maanta arka dhamaan aad iyo aad baan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed daawanaysa idinkana daawanaysa dhageysanaysa inta wada idinka daawanaya fariin aad qaali salaan aad qaali hawada idin soo marinaya walaalaha Soomaaliyeed meel walba joogtaan runtii waa farxad aad u weyn waa farxad waa guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed guul soo hoyatay weeyaan inta dhiig iyo dameel kale ay ka dhididay diiditaanka Cabdikariin Sheekh Muse dulmigi lagula kacay ummadda Soomaaliyeed ay ka dhididay waa guul soo hoyatay caawa in maxaan ku dhahay Cabdikariin Sheekh Muse oo caawa si xora u joogo si rasmiina maanta ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay isla kulmeen warqadiisina uu ka qaatay maalmaha soo socdana insha Allah taala uu ku soo wajahan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya runtii waa farxad aad u weyn khaas ahaan hadaan nahay saamilka Cabdikariin Sheekh Muse hooyooyinkanagi caruurtii dhamaan waa farxad aad u weyn waa guul aad u weyn waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa cafiska uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia أبي أحمد وأفدي أباها مانتا إلهي سبحانه وتعالى بمهد إذا الكريسكالة مركا حيتنا وحن هذا وهم هالعلينا إن أمد الصوماليات كدي بدي كذا قطعي عبدالكريم شيخ مسديبتان كسي وريايات الصوماليات مال والبتشوغة كهالي حلبان ندي الصوماليات ضمير كيدي قالها أقويها الندي يشعب كي الصوماليات بقى أنا وانكال الريب إنه وحن لنا قوشي adinku geedkii aad qalaasheen midhiisi maanta waa la qoranayaa Cabdikariin Sheekh Muse asagoo xor ah iyo insha Allah taala idin la hadlo idaacadaha iyo TV-yadana uu ka hadli doonaa asaga maxaan ku dhahday aan ka warsugaynaa asagana cadeyn doona raggi maxaan ku dhahday dhiiga iyo ciddi gadatay asaga ka hadli doona waxa nasiib darro ah dawladda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ay ku kalsoonaayeen ay soo doorteen ay ku qanacsaneen hadaan nahay ummadda Soomaaliyeed inay naqayaantay wadada Soomaaliyeed ay maxaan ku dhahay si sharci darro ah wadan kale oo muddo dheer colaadu ka dhaxaysay loo gacan galiyay hadaba ayadoo ay u gacan galiyeen dawlad kale oo daris yihiin muddo 10 bilood ku dhawna uu maxbuus ku ahaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia in maxaan ku dhahday Cabdikariin asagoo xiran xukuumadii hore ee loo dhiibay ay isbedel weynna uu dhacay hadaba isbedelkii dhacay waxa la doortay ra'iisul wasaaraha hadda jooga Abiy Ahmed kaasoo isbedel muuqda intii uu joogay qabtay iyo waxyaalo runtii anagu aan ku faraxno maxaabiis hore oo jimhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo kamid ahayd oo laga soo dhiibay maamul goboleedyada Soomaaliya sida Soomaaliya Puntland iyo gobolada dhexe maxaabiis hore oo u dhiibeen Ethiopia oo ku xidhnaa Ethiopia guud in soo daayay oo rag mas'uuliyiin jamaareeda oo qaarkood maxaan ku dhahday sano 8 sano xidhnaayeen inuu hore u soo daayay maantana guul iyo farxad u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed iyo maxaan ku dhahday ururkii oo abahay ka tirsanaa ay tahay annaguna aan ku faraxsanahay hadaba ayadoo saas tahay isbedel uu keenay maxaan ku dhahday ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayada ururadii mucaaradka ah ee Ethiopia la dagaalami jiray sida Gilboa 7 iyo OLF عفيس وفدي مسؤولينتودي عفيسكي أو سعودي أباه كميدها أورك أول نفس دولة الصومالية تبي أول الفرد بحسه
laakiin maantana aan aad ugu farxnay golaha Ethiopia intay shireen wasiiradooda inay dhahaan awnila baakisan maaha bishii hore wasiirin Soomaaliya waxay awnila baakisan laakiin maanta waxaa beeniyeen in awnila baakisan wasiirinta Ethiopia haddaba meesha waxaa laga arkaa karaade waxyaalo kala duwan in ummadii Soomaaliya dadka hogaaminayeen ay argagixiso ku tilmaaneen awnila wasiirinta Ethiopia aysan argagixiso aqoonsaneen naguna tilmaamin ayada saa tahay isbeddelka Ethiopia iyo ra'iisul wasaarahan uu keenay aabahay markii maxaan ku dhahdaa rag mas'uuliyiinta ay la casinayay ayuu kamid ahaa afiskii ra'iisul wasaaruhu waday baana maxaan ku dhahdaa aabahay soo gaaray sidii buna maxaan ku dhahdaa afis ku qaatay maantana uu afis ku ragii mas'uuliyiinta uu la mid yahay afiska hore loogu fidiyay ayada saa tahay dawladii shalay asagoo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan iyo lugaha gardaduubka waynu arkayna sawiraantii ilaa daraad la soo gelinayay maxaan ku dhahdaa Facebooka indhaha uu kaga xidhnaa macawiista rag waxaa ka dambeeyay Soomaaliyeed niman mas'uuliyiin isku sheegaya sila Soomaaliya ragga fadhiya farmaajiya khayriya jawaasiista sila Soomaaliya fadhida ayaa ka dambeysay maxaan ku dhahdaa qabashadii aabahay gudbintiisii ayaa ka qayb qaatay ayada saata inay maanta markii aabahay afis loo fidiyay ay dhahaan annaga ka dambeynay waxa dhici kara ma aha aabahay wuxuu kamid ahaa raggii mas'uuliyiinta ah jeelasha Ethiopia ku jiray ururada kale sida Gimbood 7 oo kale iyo maxaan ku dhahdaa Oromo Ahmar raggood mas'uuliyiintooda waa loo siiyay afis raggaas aabahay la mid ahaa maantana afis la siiyay inay sheegtaan ay dhahaan annaga ka dambeynay ma aha ta kale safiirka u fadhiya Ethiopia Soomaaliya baa ka hadlay baalidi haddaba ha ka hadle safiirku Soomaaliya ayadu miyaysan lahayn hoggaan warfaafineed iyo wax u hadla markuu ninkii matalaya Ethiopia u hadlayo asaga oo dhinaca Soomaaliya ka soo jeedo Soomaali ahaan u hadlaya taasna waa khiyaano weyn oo dowladda Soomaaliyeed weli lagu dhaxwado khiyaanada daabaha loo geystay oo la socoto weeyaan haddaba dowladda Soomaaliya sheegashada ay sheeganayso in maxaan ku dhahdaa Cabdi Sheekh Muuse ayagu arrintiisa ka dambeeyay deyntiisa ma aha wax jira wax socon karana ma aha ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in maxaan ku dhahdaa khiyaanada markii hore aabaha lagu dhigay ilaa hadda socoto ay sheeganayaan inay Cabdi soo daayeen aysan ahayn inay soo dayn waa khiyaanadii markii hore socotay oo wali la sii wado ummadda Soomaaliyeed baa la rabaa in kolba wajhi hor loola yimaado shalay way inkirayeen oo waxay leeyahay anigu Cabdi maanan dhiibin maanta maxay u sheeganayaan haddaba Cabdi soo dayntiisa haday shalay dhiibin oo maxaan qalaayay ka waraynin maanta markii la soo daayo macala safiirka u weynaa inuu sheego Soomaaliya inay ay dhaqanada soo daynay ilaa shalayba way inkirsanayda maxay ku dhacday marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta damiirka iyo dhiigga leh waan idinka mahadcelinaynaa murugadii dhammayd soo haysatay in caawa farxad ilaahay inoogu bedelay Cabdi Sheekh Muuse asagoo maxaan ku dhahdaa xara maalmaha soo socda insha Allah uu ka soo degi doono magaalada Nairobi dalka Kenya qof kasta Soomaaliyeed oo damiir leh oo wadani oo ku sugan dalka Kenya ama magaalada Nairobi inuu ka maqnaanaynin bay la tahay marka waxaan leenahay waa farxad aad u weyn ummadda Soomaaliyeed iyo uriyaasha hadda dadka live-ka meesha ku jira inta idan daawanaysa ee dhageysanaysa aad iyo aad baan idinka waa maasantahay adiga mudan halgamaa sare fartuun Sheekh Cabdi Sheekh Muuse Sheekh Ismaan oo salaamina insha Allah taala waa inoo markuu aabay maad waan idinka qaadaya wala aad waan idin salaamaya waxa malaynayaa asli daajaba meesha fadhiisama إذا جاء وكبحي دو هذا برنامج كي لا يحساري هاي أنا كهذا وح ما أنت داعي سيدا يهينا كريه شخصي أوصل إذا جاء يعني دود وكبحني بس إذا جاءنا وسلام يا عبد العزيز بوس aad baan ku salaamaya walaalkay arso aad baan ma santahay halgamaa sare runtii waan ku ognahay halgankii dheeraa ee u gashay lixitaankii aabaha iyo dulmigii la dulmay inaad ka dhiibido adigoo wariyo Soomaaliyeed suxufi Soomaaliyeed inaad ka dhiibiday dhiibitaankii aaba la dhiibay iyo dulmigii loo geystay ilaa habeenkii laga soo qabanayay magaalada Gaalkacyo ilaa caawa habeen farxadeed inoo tahay inaad ka qayb qaadatay
aad baan kaaga mahad celinaynaa mar walbana waan ku ognahay mar walbana garabkaagaan nahay adawaa waxaa joogan kulena walaal aad waa maasanta boqolkiiba afartan waa maasanta thank you hayo waayahay horta beentu intaa weeraadkeeda jimcahana si fiican baan hadduu talaado ilaahay keeno jimcahana shir weyn baa la qabanayaa si fiican bay isu raaci doontaa horta beentu wax micnaamo samayso waa taa beenta ladii sheegay horta intaasay ku egtaa haddaba waxaan rabaa inaan ka soo bilaabo A to Z waxyaaba badan oo aanan sheegi jirin oo aan qarinayo sirna aan sheego ayaan rabaa oo ku saabsan qalbi dhagax sida loo qabtay horta qalbi dhagax muqdisho joogi jiray waa la ogaa weligii dowladdii tan ka horreysay sooma qaban wuxuu tegey mataqaanaa wuxuu tegey gaalkacyo arrimo qoysu u tegey markuu gaalkacyo arrimo qoys u tegey hoteeluu degay hoteelka maadaama magaciisa la raadinayo wuxuu qortay sheekh cabdullaahi cabdi ayuu qortay oo baasaboorka uu watan magacaasa ugu qoraa markaas waxaa jiray nin kabtan ah oo nabad sugidda nisa ka tirsan oo mariixaan oo reer dalala sidoo kale la shaqeeya ciidanka liyu booliska oo rasaastii waxaa kasoo qaadi jiray oo reer cabud waaq ahaa hooyadiina ay ahayd reer gilisoor ama reer gaalkacyo ay ahayd hooyadii oo naag saacadaho oo reer jalaf ay dhashay ayaa jiray ninkaas ayaa loo soo sheegay sheekada ku saabsan in ninkaa mataqaanaa uu joogo qalbi dhagax gaalkacyo ninkaa hoteelkii uu deganaa qalbi dhagax ayuu la kiristay ula degay kadibna markuu hubiyey inuu isaga yahay muu dhihi ninkan waa OLF wuxuu u tegin lahaa faracadde oo sacadahoo reerullah oo taliyaha ah nabad sugidda ee gobolka mudug ee nisa ninkii wuxuu ku yidhi nin argagixiso ah ayaa wuxuu joogaa uu jiifaa halkan hoteelka tilmaamtii uu bixiyey ciidankiyaa galay way soo qabteen waxaa loo xiray inuu yahay ilaahay kuma sama diiday inuu yahay argagixiso al-shabaab ah waxaa ila soo hadlay xaaji maxamed yaasiin dhiirane ilaahay khayr ha siiya caafimaad waa xogayaha guud ee OLF markaasaan faracadda aniga wacay telefoonku ii qaban waayey ku-xigeenkiisa ayaa ila hadlo leeduraan oo sida saacada ugu kala culus markaasaan u sheegay wuxuu jiray iyo ninkii wuxuu yahay iyo inaan la qiyaamin markaasaan sheeqilka dahab iyo odayaashii culimaa udiinkii saacad wacay oon u sheegay markaasay culimaa udiinkii iyo odayaashii soo kaceen ooy hor tubteen halkuu ku xirraa ooy habeenkii halkaasaa laga dhigteen markaas ayaa dad dalaaliinahoo jawaasiisoo u shaqeeyo ayaa waxay iska soo buurteen markii arrintii la maqlay puntland ilaa galmudug oy lacag baa yacayeen intaasoo milyan iyo rasaas 2 baawar rasaasa markaasaa madaxweynihii galmudug lala hadlay markaasay meel walba isqabsatay qaylada oo qolo walbaba rabtay inay ayadu Itoobiya ugu faanto oo loo dhiibo laakiin madaxweynaha galmudug la hadlay taliyaha nabad sugidda wuxuu ku yiri nisa aniga iikeen asaga iyo dad saraakiil ah oo Itoobiyana ayaa cadaado u fadhiyay oo meel dhan oo teenda loo diyaariyay habeenkaas gaalkacyo waxaa soo deganay oo dhinaca jiray nin asaga la dhashay cabdikariin weelkii ah oo adiga majeerteena oo isleeyahay waa biciidyahan asaga la dhashaa jiray ninkaasna meeshuu yimid calaa xaal habeenkii ayaan saraakiil hoosaadyo aan taliyaha ahayn aan wada shaqaynay taliyahana aniga iyo rag muhiim ah isaga ku jufo hoose ah oo saraakiil ciidan ah waaweyn oo caana ayaa la hadalnay waxaan ku dhahnay qadiyada noocaasa faraha kala bax arrintaa cabdikariin sheekh muuse faraha kala bax marka wuxuu meel allaalay meesha rabtaan u dhoofsada meel allaalay meesha rabtaan geesta afkiina way xirnayaan marka wuu naga tegay habeenkii isaga ceel huru aad meel dhaad ku-xigeenkiisaan hawsha wadwadnay rag kaloo saraakiila marka xaaf iyo Itoobiyaankina waxay ku sugayaan iyo taardhuleed cadaado in la keeno subaxdii oo baawurta soo qaadeen soo gulbineed wixii dhan waa la diray odayaashii culimada saacadna iyo weelkiina meeshay hor jiifaan
markaas ayaan ragga waaweyn ee oon la fahminka wada hadalnay waxaan ku dhahnay laba option haysatiin meesha kuma hay karna ninka inaan Nairobi idin geeyno oo diyaarad toos oo flight aan habeenimo kireeyo oo subaxdii ka qaado ushaaka ka qaado airport oo toos Nairobi u duusho iyo inaan xamar geeyno marka waxay dhaheen Nairobi kuma halay karno xilligaas waxa weeye in xamar noo geysaan maya الله تقعد هنا سيد عبد الكريم وشيء دون أفكيسة عبد الكريم وحال نيروبي يو حمر تيوفح حمر واحد يوم فرماجة مدحوينك نودري هذاك هاتشوجو واحد يوم كم قد حمر جيسين كي اللي وضياشي أنا كلها بنولف كورما حاج محمد ياسيني واحد دهن خطاب بحمر جيسان واحد يمكن اللي جرانكم وبس كده جي مكاس أيام ديارة لعقت الجاب كقصدك كبحيسي odayaasha oo laf ayaa la kireeyay oo doontay oo kaasha u fariisata subaxdii inay soo qaado marka dib wuxuu naga heystay taarulaad iyo xaafi saraakiisha Itoobiya oo ku sugayay cadaadi in la geeyo Cabdikariin Sheekh Muuse markaas ayaan falsafad muqaabalaadka isticmaalaan oo cajiib isticmaalnay oo ah inaan baawar badan faylinay oo aan dhahnay ninkii baawar uu soo qaadaya xaalad amaan awgeed baawar la saarayo dadka inay kala mar baawrta xaga naga tagto baawrta hala fayliya aan tagina isu diyaarsha kadibna baawrkii aan saarnay iyo saddex askari oo la socotay ayaan baawrtii baxaysay calaada ay iska dhex bixinay oo aan dhinaca garoonka aan u leexinay halkaas ayaa laga soo saaray markaa Cabdikariin oo marka baawrtaan ay tagayso walaalkii saaran yahay walaalkii isaga dhashay baawrtu saaran yahay ay tagayso cadaado oo xaaf oo istaarleed iyo banaanka ay ku sugayeen saraakiisha Itoobiyaanka ah isagana xamro ka digtaba markaas aan la hadalnay wiilasha la socda askartaha ma dajiseen ha airportka gudaha ma ogala ha diyaarada ma ka digteen ha shaqo kuma lahaydin meesha tinka aada halkaas markuu ka baxay ayaa waxa ku sii sugayay Saadar John iyo Jamaaluddin Mustafa Umar وصفيك إثيوبيا ليكو فردها إنك سيحاول كرله يو صادقتون ينكاس يقف الدحات سنبلو شما هنا ما يقف الدحات جري أيوة يكسوه ين قرون كمان أبوا قبصه وقعته أضياش مركل وهذا وركي سوى شيء هو باورتن دو جوجنا كورنيان نهاي على نفسنا إثيوبيان كي يحافي على كأنه سوى نك ولا ولجد دونا أنا لكن مركز توحن وشيء أضياش وحياهي يتراء أفجنا إذا كيسوا عي محبة اللي هذا قرح يسكريه إن عبدالكريم الشيخ موسى عن هوبي وديارة ماشي أدور بتين أيو قاعدة ديارة إذا لعكت بحسين حمر وقاعدة مركز نمكا أضياش أول اللي في أوجادين ونبا كوايرات وحشكي كمي قبين إن فرماجني كانوا محارو بيبدون وحشكي ما قبين بيو كوايرات وسوسة فكر نوع عاصم قبين أيوة عمسو عيك قبين إن قلمتو لقيت يبقى بلدان دلاشي قاعدته وحاسي كقبين أما اللي يبورس إيمان رصيه عبد محمد عمر وقاط وحاسي عبسي قبين ما بقى قبين بأي فرماجو يمقصو إني كل كلام وحاس على حال ساسا دعضي نكي أيها قاطي هاي كانت أضياشة أو اللي في حمر جوين وسو حقيقيين سنة الردي يحل بان الذي أبصمي أيها إسأل رسلي فرماجو تغيي وحي دهينيك ينكاربنا وحكولي أن هسا كدب كلنا وحيد هنيك هو صعنا وحول هسا كدب كلنا كدبنا وحوري ويختي الملكة ويكدب الله لابتين وكدب الله لابتين وكدب الله لابتين وكدب الله لابتين هبينك حري على دقدق وحاشري وسيم سنبلول شيء رئيس سارة غير حليا مصطفى الحلو ثابت عبدي جمال الدين مصطفى عمر ولا جبجبي وحلقوا عاصري جمال الدين وحكويلي وماشى كريه حليك إثيوبيا إذا أنكو هجاجي كرو وماشى كريه لو ضل عصي كرو غير وأنا قاعد دور إثيوبيا كويس كينيو حتى نكاسيست ساس يعني كلو جبجبي مركي ورقة رقصة صحيحي متقنا ماشي واحد جوجو بشير جوبي واحد جوجو عبد الرحمن ديري ماشي ولا صابتي أديكو يعني واحد جوجو كوحنا كسر ريو اللي مهدي أو إثيوبيانا اللي مهدي محمود ساس جولد اللي هذا إذا كلا الساقة ورسول سالك حجنا محمد عبد الحير ماريا جو رجع إثيوبيا كل جوانا سوق أروسدي وهذا اللي يسكت سوق أخي
على حال سيداس أيا نينك لوجا بجبيي تابل عبد ديارد ما تقانا مركي وسوق كليي هوري أي ما تقانا أيو ما تقانا أي isagoo ooyinayo oo qaylna dhahayaa ninkii dila inta Ethiopia idii balheedin ayaa si xun loo jibdilay indhaha laga duubay garoonka la geeyay garoonku si dagaalamay si xun loo dilay diyaaradii waxa la raacay inta aan xaqiijiyay oo ii sheegeen saraakiisha garoonka joogtay isaguna oo maanta ii xaqiijiyay waxa la raacay taabid cabdi oo diyaar soo kireeyay safiirkii mataqaana mursade ee mataqaana Ethiopia u fadhiyay Soomaaliya ee mataqaana Jamaaluddin Mustafa Umar xildhibaan Mustafa Dhuxulow iyo nin kale sabru shamu ahay nin kale Sadar John ayaa la raacay diyaaradii Baydhabo tagtay diyaarad kale ta Baydhabo laga sii raacay loo sii qaaday saasa ninka loo qaaday markii halka la geeyo markii sheekada markii xisaab leedahay markii halka la geeyo waxa weeye galaangal badan la sameeyay xildhibaanadii iyo senataradii afsame beesha daarood ninkan uu xumeeyay sida farmaajo u galay qeyras u galeen waatay qeyl ka sii daayeen waatan qaarkood kala laalushay lacagaha loo qaybiyay qaarna ay ilaa hadda xariisan yihiin mataqaan saaf u dhaceen xagga marka la tagay waxa weeye markii Cabdikariin waxyaabaha uu ku helay jaaniska yahay isagana inuu og yahay ana ogeyn wali u hubo inta aan laakiin ogahay Cabdikariin wuxuu ka soo horjeeday shidaalka in Soomaali galbeed laga qodo oo Jayneska qodaan oo hortaagna waa tin bir lagu weeraray Jayneska oo lafta ay weerartay kuleys marka dawladda Mareykanka Cabdikariin isaga malaha muuse ogeynay dushay ka ilaashanaysa maadaama uu muhiim u ahay marka dawladda Mareykanka wafdi ka socdo oo degdeg ah sababtay waxa lagu yiri ninkan mana ciqaabi kartaan caafimaadkiisa waa la soconayna waa inaad siisaan hoos arrest ka dhigtaan way daasi deeyeen sidaas ayaa Cabdikariin hoos arrest looga dhigay oo guri hotel oo kale ah la dejiyay oo lagu ilaalin jiray marka Cabdikariin soo jeedin badan loo sameeyay oo ah Ethiopian kala mid ah ay dhahaan waa kaasa ninka u dhimanay Soomaalinimadii oo soo dhiibayaan anaga laakiin maadaama nin Ethiopian ah tahay sidaan ku yeelay Cabdikariin waa diiday dhowr jeer nimanka u tageen Sambulushi iyo qayre iyo la kulmaan rabeen waa diiday inuu mataqaana inuu yiraahdo mataqaana wada hadal ay u keenna waa diiday oo Mareykanka waxay ka codsadeen oo Suudaan kuwa la kaashanayay inuu yiraahdo wada hadal ayaan ku soo baxay inta ku imid taasna waa diiday markii Cabdikariin wax kasta wuxuu ka soo istaagay موقف ألك يجوان مية مركز دم عبد الكريم وحيل جودين إن حل لصيه وتوبي حلو كقبته وادي على حال حبيبي جدا بيسي شركيس على السعودي تلفون الله كاني وحلقولي حدا جدل ربين وإن الله شحاس كعرور تيار وويل كعجاه وين يمر والبتيفيه كصوم موضع كجوجسه markaas ay gobol la hadlay adka lagu hadlay waa haya waa madama duxuriyana waa soo bandhigi doona markaas ay gabadha la hadlashay qolooyinka oo muqaabaraadka way daba joogeen gabadha telefoonkeeda aad ay u socdeen iyo dhaqaaqeeda markaas ay gabadha ku yiri markaas ay ku tiri wariya sawcadu gacanta uma jirtaa hadda waa saas sawcadu gacanta uma jirtaa wiilkaan wala joogay anagu hanal dilay ama Ethiopia noo dhibay adigu xaniyeelo warkaaga yaa maqal ama dhimo sharaf ku dhimo ama Soomaalinimo ku noolo laakiin mar dabo gabadh la wada hadlay in bal oo arinta joojiso oo loo kaadiyo waa go'aaneed waa la isku raacay asaga laga ma yeelin laakiin waa la isku raacay على حال ويلكي يجبدي يعرورتي عبد الكريم نك هالضغم مجال مغشاء ووسيل ورفت حلقة يا عايز صارتو بي صارتي وحلاقي ورفت مال قنصة وينك إن كم ممنوع ذا ويكدي الدواء إن كم ممنوع ذا إنه مرضى بقى عنقي إذا يوربانتي كهلا إن كان صور رئيس هذا قولي الله وصل قلي المين شق حالة كراعي إسلامك ولا كراعي وحلقول هذا مرضى بقى أوربانك هالشان إذن كان يتوبيا إني بينا هذه المهاجم مكاسي الصباح دي أورك هاللي هلين كحيانا واك قاعد المهي عندي كل مش ولا قصة رئيس السعودية ولا بحية حريها قحوتي كي كدعين ولا ربحي مركي عبد الكريم قصة الله عليا مركي عبد الكريم كان تاعي تواك اسبدل اليمت الرسول سارح أصب لهلي يتوبيا الرسول أصول أبي أحمد وكان معارض في أوضة كقاضي وكان فرفرناسي أساس ميجي وكان جيبوت 7 iyo kuwa dhahaaya mataqaana ONF leeyahay oo oran mataqaana National Front leeyahay
mucaaradkoodii argixisnimada lagu xukumay waa kan sii daayay waa kan baarlamaanka hortegay gabadh Tigray ay weydiisay ku tiri argixisadii annaga dadka ku xukunna ayaa sii daynaysaa ra'iisul wasaare Ethiopia waata uu ku yiri kuwan argixisa ma aha kuwan waa dad xaq raadsanaya oo gobonimo doona argixisada waa ciidankeena sida loo ogyahay dadka u jabdilay maxaabiista dambiyada hay'adaha xuquuqda korbixiso saareen waa kan Fahad Yaasiin iyo Khayre iyo Cabdi Saciid ay orod ku tageen Ethiopia ay la kulmeen Solomon ninka la yiraahdo Solomon ay la kulmeen Solomon waxay ku dhaheen waxa rabnaa si kasta oo ninka markaa loogu sii hay kara xabsiga maxaa yeelay waxaan ognahay Axmedow baa la kulmay oo yiri oo rabo inuu doorasho ku soo galo oo Raad Cabdikariin soo daay saadad waxaan doonay ninka ila soo daay lacagna way geeyeen Solomon lacag siiyay Israakiil sirdoonka Tigreega laakiin markay la kulmeen 7 maalmood kadib waa kan oo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed xilkii ka qaaday saraakiishii Tigreega ee ciidamada dhan kii sirdoonka xitaa taliye sirdoonka ka qaaday jaf marka waa kan uu dambeyn maadaama sirdoonka hore ay ku xiran yihiin laga war helay ma taqaanaa in uu Ra'iisul Wasaaruhu go'aansaday in uu sii daayo qalbi dhagax waayaga mar labaad diray safiirkii Ethiopia u fadhiyay Soomaaliya iyo Fahad Yaasiin orday lacag qaaday 1 milyan waayay ugu sirdoonka Tigreega waayay yiri ninkan kiiskiisu waa nagu badan waa la soo deynaa hal dilo markaas waxa baxday saraakiil Tigreey ah oo sirdoona waxay u tageen guriga hoos arrest ku ahaa Cabdikariin waxay rabeen inay baawar ku afduubaan oo ay Soomaalida xadka Soomaalida DDS ka iyo kan Oromada dhexdeeda meelaha ay ku dilaan ay rabeen oo ninkan la yiraahdo hadhow Ra'iisul Wasaaraha ay ku xumeeyaan la yiraahdo nin maxbuus oo hoosaas ahaa oo heerkaas gaarsiisan ayaa meesha lagu qaarajinay laakiin kuwa sirdoonka Mareykanka laftoodana way la socdeen baaqa ninkaas bas ku xiran yahay على حال وإيمانين عبد الكريم قبل ده يكون لادين عبد الكريم وحربنا رئيس وزراء كويرة أنا كوجينه يكون أنا رئيس وزراء وما تجابين مدو عدو يربينا ويا كان ماشي كنا وإصاب بوقرة لكن حين الكوسة في أنا ما صور عني رئيس وزراء جيساني معها ده دري سنة كواي مركا ما يوقسم أخوك حين عليهن وردي سيجار كهاي ومركو الله حلي ورمو بدنا أيها كدي أو جدو يرمل وبحياة ماله markaas waxay dhaheen barito ayaan wixii uu kalsoon ku soo jawaabay xafiiskiisa aan kugu soo laaban doonaa sidaas marka ay tahay ayuu Cabdikariin fahmay in dilkiisa loo socday markaas uu ku yiri ciidankiisa wajitay meel amaana ayaan aqaanaa oo ku dhuuma karo nimanka hadda soo laabanayaan in la dilaan caaw qorshuhu yahay sida muuqato Ra'iisul Maxkamadda uga Soomaaliya dirin meela baxsan kartaan ha maash mugu ila kartaan ha way la baxsadeen marka guriga Fawsiya la geeyay oo Suudaan ah guriga Fawsi ayuu habeenkii seexday subaxdii la Fawsi in la Jamaal ayaa soo baxay soo raacay xafiiska wasaare tageen wasaare u sheegeen waxa dhacay marka wuxuu ku yiri markaan guddiyan magacaabaya amni nimankii waxa xala sameeyay ee qorshaha damcay waa la soo xirxirayaa isagana waan cafinaya u sheega si xura isaga joogo magaalada xafiiskana anaga markaan la kulmo oo la sheekaysto kadib warqad u qoraya markaad arkaysiin marka uu qalbi dhagax magaalooyin soo galay soo sawiran oo rag odayaasha la sawiran mataqaana magaalo dhex marayo waa markaa horta ciidanna waa la sii dharcado oo la socdo oo ilaaliyo oo gaar ah xafiiska Ra'iisul ka socday marka markii uu Fahad Yaasiin iyo Khayre qashqolka ay rabeen in lagu dilo Cabdikariin oo fashilmay maanta ayuu haddaba kama dambays la kulmay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed maanta la kulmay markaasay wanaagsan bay u wada hadleen wuxuuna yiri waxa maanta aan ku daahiyay waxaan rabnay oo aan golaha wasiirada rabeen in ansixiyaan in ONF iyo Gabood iyo ONF iyo kulli ay saliiska argixisada laga saaro oo wixii marka hore nidaamkan Tigreega ah EPDF ka ama taqaana ay ku sameeyeen inaan ka dhaqno dawladuna intii lagu hay magdhowgaaga waan ka siinaynaa magdhow ku sii doonaa xorana tahjiijiga ay kartaa hargeysa ay kartaa meesha ay jeceshahay ayaa u dhoof kartaa ciyaalkaaga soo arag warqadiina haddaan ku qoro waa kan maanta la siiyay 5 saacad ka hor meelaha qiyaasta warqad la siiyay sidaas oo Cabdikariin ku soo baxay oo isaga iyo Ra'iisul Wasaare Ethiopia u kulmeen isku soo macsalaameeyeen maanta salaada ah laba duhurnimo ayuu Cabdikariin wuxuu ka degi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo magaalada Nairobi
maalinta jimcaha aan wuxuu qaban doonaa shir saxaafadeed ay jaalid Soomaaliya dhan u dhan tahay saxaafadda caalamka iyo tan gudaha kullina ay wada fadhiyaan oo maqal iyo muuqaal ah si guud ayuuna uga hadli doonaa wixii dhacay halka markii ay taagan tahay waxa soo laabanayaa hadalkii maanta uu sheegay ninkii seexawla kanile Jamaaluddin Mustafa Umar oo ahaa ninkii markii horena gacanyaraha gabra ahaa ee dilay 700,000 oo qof oo sirdoonka Itoobiya watay birigay Abdullahi Yusuf haddana ah nin mataqaana safiiro si qalad isagoo nin Soomaaliya looga qaaday mataqaana warqadaha looga gudbimo qalad ay ahayd qaladkii wada kala ahayd ninku maanta wuxuu hadlayay sidii afayeenka farmaajo haddii laakiin Itoobiya ay wax wala qabto oo ay aaminsan tahay inuu yahay Itoobiya ninkan wasaaradda arrimaha gudaha ka hadlayso wasaaradda arrimaha dibadda ka hadlayso ninkan dhib ma markaas haddii ay aaminsan inuu Soomaali yahay oo nin ajnabi yahay oo wax wasaaradda arrimaha dibadda ka hadlayso safiirka ma hadli karo laakiin kubi falka geystay ee ninkan afduubay shalay markay afduubeen Cabdi Maxamed Cumar la hadlay madaxweynaha DDS-ka wuxuu ku yiraahdeen noodhe wada hadal noo socday uu suurtageliyay soo fashilantay maantana Jamaaluddin intay la kulmeen dhahan ninkii aad adigana tiri ilow aniga hal ugu sharfay xilka dawladda sameeyay waa ka dawladda sii daysay talakeen qaarna waa kuwa wuxuu nin mursadaha oo tolkiga ku weystay maxay dhibkii gaaray على حال وهذا الكذب وحكى أصلاً إنه يسقى حلو وراده دولة إثيوبيا لكن وين الشيء يا مانتا أبي أحمد ولحسن قام يسافرك وقعد دون تاو هي السورة أنها وهو إثيوبيا وبلارنتا نين هذا سياسة كلا وطن وجوجا لكن إن لقى بين أوروني ما يردوني أي ماشي بيجو marka sidaas oo maanta u hadlay ninka wajigiisa waa arkaysan beentu sheegay inuu been sheegay ninkaasi ayaa yiri ma taqaana saana inay beentaha ceeb ku tahay ceeb ku tahay mooga sababtoo ah ninkan waxay yiraahdeen waa argagixiso shirka golaha wasiirada laga yiri waa argagixiso oo lafna waa argagixiso Itoobiya way ka laabatay been abuurkeedii ninkii way soo daysay iyagu maxay haday ninkan ay ka hadleen dawladda Itoobiya hadii waayo dhihi waayeen dawladda Itoobiya kala hadleen in la soo daayo maxay markay ogaadeen maalmo ka hor dhihi waayeen raali gelin baa ka bixina qaladkii naga dhacay ahad oo lafnay argixisad tahay dhiibistaan dhiibnay qalbi dhagax ma taqaan raali gelin baa ka bixinay shacabka inay cafiyaan ka codsanayna maxay riwaayada u jiri waayeen dadka madabaala markay ninkii amxaarka ay shalay dhoofiyay ee qaaday ay maanta hor keenan oo dhahayo dawladdan arka wajiga tahalka oo kale oo la xishoonay wajigiisa ku qoran tahay markii akhrinay body language-ka ay ku qoran tahay ku dhahayo saan waayo saan leeyo dawladda wax badan ka codsatay marka Moses weydiinaynin ninkii hogaamiyihii mucaaradka oromada maxaa loo sii daayay kii amxaarada maxaa loo sii daayay waayahay Itoobiya oo farmaajo kala hadal in oo la fliiska argixisa laga saaro oo ay wixii qaladkii sameeyeen dib u saxaan ay laakiin waxaan wuxuu ahaa isbedel socday oo ra'iisul wasaaraha cusub uu sameeyay oo ah qaladaadkii hore in dib loo saxo Itoobiya si Itoobiya cusub noqoto rumaysta maanta daahir cali soo asaawati kara jijilati kara intaan tago ayaan waliba ra'iisul wasaarahtiisa mucaarad karaya sida hadda ku socoto way u muuqato sababtoo ah waxa meesha ka baxay nidaamkii kaligitaliska iyo qabqabta iyo inda adeega wax ku waday marka waxa weeye marka waxa idin sheegay hadalka marka idin waday nin kabtana oo reer dalala oo Mariixaana oo nisaka tasan inuu hotelka la saxiixay Cabdikariim waxaynu intuu marka mucjisooyinka cadiimka ah ee ka dhacay ninka hooyadiina islaan saacada ah marka ninka uu baxay isagoo qori mustaad wato iyo rag kale la socdaan oo reerkiisa ah Gilisoor buu tagay isagoo sadii ku qaylay ayaa wiil yar u yimid halkaas ka toogtay wuu fiidu ka duubay hebel ma taha bash wadi wallahi beesho fiidu ga soo bandhiga magaciisa soo bandhiga reerku waxa magtila kala qaatay wixii dhan mu'saclimu تابد عبدي وانك ديارتك لي حلك ولا وحكم عوارك
ninkii isaga oo keenay ee qeyrlaawo ahaa ayaa meesha keenay yuusuf garaad arrimaha dibadda jooga waa la eriyey juxaws arrimaha gudaha jooga waa la eriyey sambuushat ah haysatay inuu sugudda waa la eriyey milatarigii wuu sacsiray buriski waa la eriyey waxa weeye waxaa dhacay mucjiso cadiim oo ah cadaaladdarrada ninkan lagu sameeyey ayaa cadaaladdarradii ayaa mataqaanaa way gufaaci macnaha way butaacday nafsigiyaa butaacay xaqdarradiyaa butaacday marka waxa weeye war waxaan kusoo koobayaa waa inoo saafada cabdikariin soo degitaankiisa aan tusiyo waa inoo jimcaha ay shirka jaraa'id oo cabdikariin ku hadlayo waxa weeye nimankan waxa ay kaliya awoodaan waa beentuna way dhammaanaysaa dhalinyarada la sheekaysta oo wax u qora waryaada ma ilaahay ka baqaysiin war maxaad ninkaan maskiinka ah ee dhibka loo geysta xaqis u xaqiraysiin war maxaad weli beenta u wadaan war maada ilaahay ka baqaynina war mayse imaahan yowm allah yanfacu maalun walaa banun ilaa man ata allahi biqalbi saliim mayse imaanin maalin acmaashaada muhiim wax kale aysan kaada degin ya soo ma imaanaysa waxay yidhahdeen waa anaga wax ma haysano inta 500 ka qaadanaa 300 ka qaadanaa 1,000 ka qaadanaa bishi dantaan aan noo geysa marka waxaa weeye hadal waxaan kusoo gonaadayaa cabdikariin haddii ilaahay yidhaaho hadda waa xur waana imaanayaa waxaan aqaanaa ayaamaha ifafaalahana waa aqaanaa waxaana la yidhi qofka waxa soo socdaa arag waxa joogana ma arko waxa la astaa maxamed cabdullaahi farmaajo anigoo taageerayay oo taageero ahaa markuu guusha laacay 8 bari kadib inaan ninkii qofka ugu horreeyay mucaarada ahaa oo dadku ila yaabeen markaa mucaaradii wax kale ma ahayn waxaasaan arkay dakadiha la bixiyay xagaa la bixiyay hal sano ay barka hore ma jirin mataqaanaa wadaniyad waxaan arkay brain washing waxba ay sheegay hadda shacabku farmaajo waxba ku dhacay farmaajo waxba ku dhacay farmaajo doqonnimadiisii iyo liidnaantiisa kaliya waxa haystee farmaajo blackmailing baa lagu hayaa farmaajo fara laga hayaa farmaajo wuxuu ku qasban yahay inuu saxiixo oo fuliyo wax allaalay waxay Fahad Yaasiin iyo qeyrlaawo rabaan faray ka hayaan ma aqaano ma wax beesha caalamka ma taqaan la ogtahayaa ma wax isaga lagu xiri doonaa ma wax ceeb weynaha ma ogi ya farmaajo wax weyn baa ku dhacay waxa weyn aniga xilligaas arkay waxa kale farmaajo qaba waxa weey xanuun kale farmaajo qaba waxa weey waa beelo ku nool qiyaari waa qof haddaan iska sheekaysano on ku yiraahdo dadka oo fiican aaminad dadka oo fiican macnaha waxyaabo farmaajo ayaa waxa weey waa qof raba in uu ku noolaado qiyaari farmaajo waxa laga yaabaa dhaho aniga hooyaday oo 96 sano jirto oo maxamed cabdullaahi farmaajo ay dhashay ayaan habeen hore u duceeyay uuraylaada kuliyad daro farmaajo wuxuu ku leeyahay hooyaday oo 96 sano jirto ayaan habeen hore u duceeyay marka u duceeyay uuray yeeratay oo qiyaari oo saasa ka dhaba asaga uu aaminsan yahay waliba farmaajo qiyaari oo kula imaana oo hebel ma taqin ninka leeyahay hebel ninka urule xasa ala qeyrlaawo soo booda wuxuu leeyahay waa run ninka uurayaan ba aqaana ninka asaga ninka uurka u yeelan ba aqaana farmaajo waxba kuma intuu saxaafad soo yeelno ilaado hebel oo saasa oo nin raga urule rasuul saalihiina waa kama iqir ninka uuriyo yaqaana inuu yiraahdo sabta wuxuu ku nool yahay qiyaari macnaha ninka dawlad isna u yimid ee isaga isbahdilay isaga xilli rasuul saalaha ahay dhexta wadaniyad ma jirin ee yiri wadaniyad rasuul saalaha ka soo noqday 6 bilood yiri dalkan hal sano ee barka hor wax wadaniyada kama jirin ee marka uu hadla yiri aqoonteedu waxay ka bilaabaysaa xawataako yiri ya marka farmaajo waxa wax weyn baa haysto waa isagoo beenlow waa isagoo iska faan jecel waa isagoo qiyaari ku nool
waxaa usii raacay in ninkaa balaagmeyl lagu samaynayo oo dad fara ka haya oo Fahad iyo Qayrlaawe ugu horeeyaan ay leeyihiin maalinka waxaan ku dhahnaa sheeg laakiin ceebta ugu weyn ee qof kasta Soomaaliya ku qoslay waxa weeye in uu Qayrlaawe ilaa hadda iyo Cabdiraxmaan Yarisu isoo fariisan laayihiin oo dhihi laayihiin waa ku qaldan oo laf argixisa ma ahayn waa ku qaldanay Cabdikariin Sheekh Muuse argixisa ma ahayn laakiin waxay doonayaan inay hadal ka bilaabaan guriga marka dhisaayo aas-aaska hoosa laga bilaabaa markaasaa kor iyo jiingad in la saaro la tegaa ama kor laga shubo ayaga waxay doonayaan gurigoon aas-aas lahayn inay kor ka soo shubaan oo meesha la rabay in iyagoo Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya matalayo ay la hadlaan shacabkooday ruuya been u sheegaan waxay ka doorbidayaan inay yiraahdaan safiirkii Itoobiya aawa ninkii Mursada Tatollaahi ninkii baxarka Ingiriyaadka noodhe inaa mataqaanaa oo dowladda ay ka shaqaysay dadku madabaalaayo dadka xoolama u qabaan dadka xoolamaa dadka aqli loo waay ninka markuu hadlaya wajiiska muuqataa adig yaaba la shalay afkaada ku tiri inta fariisatay mataqaanaa golihii wasiirada inta u fariisatay argixisa waay Cabdikariin argixisa waay OLF ilaana hadda kama laaban baarlamaankiina ku yiri ma aha ma la qaadan go'aanka baarlamaanka soo baxay ee xariifnimo qof dad ma xilxirin dadku waxay kugu dhageysayeen dadka madabaalaa ana waxay la tahay waxbaa sarag leh waxaa laga yaabaa caawad iga qoraysaan in Cabdikariin madaxweynaha Soomaaliya noqdo ama meel ka sareysa joogsado Cabdikariin qalbi dhagax taasaa laga yaabaa marka waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan u mahadcelinayaa intii nagala qayb qaadatay muddada dheereed Cabdikariin qadidiisii waxa weeye Daahir Cali Suha jeclaanina Soomaalinimo jeclaada Daahir Cali Suha jeclaanina qofka xaqa laga daran yahay qabiilku uu doono ha ahaado gaal iyo muslim qofku doono ha ahaado qofka laga qaldan yahay ha loo heliyo taas uu Ilaahay kugu irsaaqay taas caafimaad ka qaadi daacadnimada guuleysan gaal iyo muslim qofku wuxuu ahaado waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ninbu wuxuu ku yiri tag ardul xabash iyo ku yiri halka waxa haysta boqor cadaalad fala ardul xabashka lagu sheegay Itoobiya hadda ka hor nabiga cutayma qoray nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri ardul xabash tag waxa joogo boqor cadaalad fala ana xilligaas ardul xabash waxa haysan jiray boqor cadaalad fala haddana ilaahay xaq ku ma inuu ardul xabash uu ka dhasho رسول سلام مدحويني أمر رسول سلام بقر عدالة فرح لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى التوفيق والفجر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار